wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo wasiirada maamul goboleedyada ee wasaaraddaasi ayaa kormeer waxay ku sameeyeen howlaha shaqo ee wasaaradda ee ka socota magaalada Muqdisho iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wariyahana Keen Cumar Makaraan ayaa warbixintan inooga diyaarisay. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Salaad Omar iyo wasiiradii ka socday gaadiidka ee maamul goboleedyada dalka oo dhawaan kulan uga furtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay maanta kormeer ku tageen qaabka ay u shaqeyso xarunta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. waxa ay wasiirada ay indheeyeen qaabka ay u shaqeyso wasaaradda iyo garoonka Aadan Cadde iyo sidoo kale xarunta loogu talagalay in laga maamulo hawada Soomaaliya. markii ay soo gabagabeeyeen kormeerka ay ku sameeyeen wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo xarunta loogu talagalay in laga maamulo hawada Soomaaliya ayaa kadib kulankoodii wada tashiga ahaa ee iskugu yimaadeen wasaaradaha gaadiidka ee maamul goboleedyada iyo wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ka soo saareen warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo 7 qodob waxaana warmurtiyeedka ay soo saareen kamid ahaa in la mideeyo siyaasadda lagu maamulayo gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. warmurtiyeedka ay soo saareen ayaa waxa warbaahintu aqriyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Xirsi Aadan Rooble. shirkan wada tashiga ah waa kii ugu horeeyay oo nuuciisa ah oo ay wasaaradda gaadiidka u qabato waxaana dah furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Cali Kheyre isagoo ku bogaadiyay sida ay wasaaraddu isugu xil saartay qabsoomidda shirkan isla markaana kula dardaarmay in la iska kaashado horumarinta iyo wada shaqeynta gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya iyadoo lagu saleynayo Soomaalinimada. waxa kale oo goobjoog ka ahaa shirkaas guddiga gaadiidka ee baarlamaanka iyo marti sharaf kale. shirkan wada tashiga ah ayaa waxa la isku tusaaleeyay baahida jirta iyo sida looga mira dhali karo iyo sida laga maarmaanka ay u tahay joogteynta shirarka noocan oo kale ah waxaana la isku afgartay qodobada hoos ku qoran. in la mideeyo siyaasadda maamul goboleedyada maamulka gaadiidka cirka iyo dhulka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada in la sameeyo qorshe mideysan dukumiintiyada gaadiidka taargada laysinka lahaanshaha gaadiidka si loo ilaaliyo amniga dalka loona fududeeyo isu socodka gaadiidka dalka. wasiiradii ka socday maamul goboleedyada dalka ayaa dhankooda waxay ka warbixiyeen kormeerka ay maanta ku tageen wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo garoonka Aadan Cadde iyo waxa ay ka soo faa'iideen iyo sidoo kale siday u arkaan shirkan ay la yeesheen wasaaradda gaadiidka. waxa kale oo aad u bogaadinaynaa wixii aan maanta soo aragnay oo garoonkan ku soo aragnay oo la soo noqoshada maamulka hawada Soomaaliya oo dhowr iyo 20 sano gacanteena ka maqnayd oo runtii ay noqotay dawladda hadda jirta iyo wasiirka gaadiidka hadda jiray qoladii u horeysay oo rajada fiican u tus sidaad arkayseen ba warmurtiyeedkii wasiirku akhriyay ayaan maxaa la yiraahdaa dhamaanteenba aan isla afgaranay labadii maalmood meeshan joognay insha Allah ta'ala hadii qodobada meeshaas ku qoran la dhaqan galiyana waxa ka soo bixi doona caqabado badan oo jira inay meesha ka baxaan. qodobada ka soo baxay shirkan wada tashiga ayaa hadii la dhaqan geliyo waxa ay noqonaysaa kuwa faa'iido badan kala kulma shacabka Soomaaliyeed taasi oo markii hore caqabad ku qabay isticmaalka taarikada maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee iskaga kala goosho guud ahaan dalka Soomaaliya. Keen Cumar Makaraan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.